madaxweynaha wax khilaaf shakhsi oo naga dhexeeya asal ahaan ma jiro hadduu qabiil iyo ka hadlana dee isaga gedo sheegtay inay reerkoodu majority ka yihiin inuu xaq u leeyahay inuu isagu maamusho halka hadduu usoo dagaana dee ima muuqata ani dariiq uu Soomaali ku maamuli karayo bale waxay shaki gelinaysaa xataa si joogista iyo inuu xataa inuu isaraxay ceeb bay ku tahay maanta sababtoo nin magaalo iyo gobol iyo dad qabiil ku sheeganayay qadana qabiil baan fiiri inaad adigu qabiil sheegto tira dad baa wax sheegay adigu inaad wixii ka shaqeynayso atamuruna naasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tadruna afala taqilun qofku inuu wax ka hadlo wixii isagu uu sameeynayo madaxweyne maxaa Abdullaahi Farmaajo maxaa gobolka geeda kaga daatay geeda maxay kaga duwan tahay gobolada kale maxaa sababaya wax iskuma hayno madaxweynuhu isaga wuxuu dabcay inuu kuraas baarlamaan daraadeed wala kuraastaas reebel bay ka soo jeedaa waa inaan anagu maamulo Jubbaland kama duwan isteediyada kale maanta koonfur galbeedna kama duwan Puntlandna kama duwan Hirshabeellena kama duwan maxaa keenaya in kuraas gadan la geenay qabiil lagu sheegto la asaas loo galay waxaan isku haynaa ma jirto laakiin madaxweynuhu wuxuu ku tumanayaa sharciga isagoo madaxleedkiisu joogo iyo intaasoo ciidan loo daabulay intaasoo barakacay intaasoo dhibaato la geystay mana aha da qabiilku xataa hoos buu sii dhaadhacaya oo waxa laga yaabaa inuu meel hoose sii gaaro waana garan karin marka wax Soomaali ku maamulayo waxa xataa ku sii haweysanayo inuu maanta isharaxo iyo inuu dood siyaasadeed galo iyo inuu dad waliba inta hor istaaga ka hadlo yiraahdo Soomaalinimaan raadinayay Soomaalida la jilaya maxaa lagu jilaya Jubbaland qodobada la tagi doonto waxa ugu horeeya wadankan doorasho inay ka dhacdo doorashadu waqtiga ugu dhaweey ku sahlan ku dhici karta inay ku dhacdo laba wixii cabashadu ka jirtay la isku hayay in xal laga gaaro oo arrinta gada ay ka mid tahay oo maanta Jubbaland waxay state dhisan oo la dhisay 2013 muddadaas soo jiray xukuumaddan waqtigeedu dhamaaday khaasatan madaxweynuhu wuxuu gaadhsiiyey wixii intaa lagu soo tacbayay ee laga soo shaqeynayay maanta inuu burburiyo oo stateki maanta arkaysa gobol dhani inuu macnaha uu maanta ku maqan yahay adag garanaynin in ciidamo lagu daabulay in systemkii dowladnimada oo dhani ay ka halkaa burbur ka yimid muxuu yahay mowqifkaaga hadda arrinta gobolka Gado arrinta gobolka Gado mowqifkeedu wax la barbaraya maaha gobolka Gado Jubbaland bay ka tirsan tahay dastuur federaal iyo ku Jubbaland ba inta qeexayaan waa in lagu soo wareejiyo maamulkeeda gobolka Gado Jubbaland ma jira wax gorgortana oo aad ka galayso arrinta gobolka Gado oo Jubbaland in oo maxaan negotiation ka galaa tusaale ahaan in wada xaajood wax lagu dhameeyo sida heshiiska Baydhabo oo kale oo dhigayay in Amisom police la geeyo gobolka Gado Garbahareyna loo dhiso maamul cusub maxaa loogu sameyn Jubbaland waa Jubbaland dad Soomaaliya degan Jubbaland bay ka tirsan tahay waxa hal cilad oo taala oo wax aad looga xumaada madaxweynaha waqti xileedkiisa dhammaad ee jamhuuriyaddu hadduu ka hadlayo Jubbaland iyo beel baa degta sabab raar Soomaali kale inuu ku maamulo ma beel buu ku sheeganaya ma qabiil baa degan baa dhaqan looga hadli karaa isna ma jira ma Jubbaland waa Jubbaland haddaad tiraahdo tan waan la go'ayaa iyo oday dhaqankeen iyo beel baa ka hadlaysa iyo dagaal qabiil iyo abaabul qabiil lagu sameeyo muxuu Muqdisho ku xukumaya madaxweynaha ku weydiiyay ma laha ay sharci ogolaanaya ma jiro sidii lagu dhisayna waan garanaynaa iyo caqabadii aan kala soo kulanay deegaano xor ahaa maanta shabaab tuulo ay maanta u joogaanay gacanta ku wada hayaan diyaarad baana maalba ciidan loo wax goormaan ka soo gudubnay diyaarado iyo hogaamiye kooxeedii iyo ciidan qabiil loo abaabulay iyo Malaysia meel lagu daldalo wadankan hadda nin xoog wax kuma samayn karay marka waan aad baan u qeexayaa barnaamijkaasi madaxweynaha madaxleedkiisu dhamaaday maxaa Abdullaahi Farmaajo oo saaxiibkay xumaan uma qabo wax kuma waxaynay laakiin ha u hogaansamo systemka shalay isagu uu ku yimid ha ka baxo inuu gobol sheegto xamarna uu yiraahdo waan maamulaya wax dhacaya haddii ay dhacdo in dad reer Gado ah ay diidaan inaad doorashada kuraasta baarlamaanka maamusho ee gobolka Gado maxaad sameynaysaa
dadka reer gadaa de horta hadday dad Soomaaliyeed diidaan dowladda xukuumadda federaalka inay doorashada federaalka maamusho oo la ku yeelada maxaa la sameeyay shakhsiyaadku moogtay ma noqonayaan dadka ma matalaan shakhsiyaad ma matali karaan ma jiro wax shakhsiyaad uu qof baa hebel baa ka yidhi ma noqon karayso madaxweyne waxaan ka hadlayaa dadka shacabka ah ee magaalooyinka gobolka Gado degan hadday dowladdu faraha kala baxdo oo jabhadaha iyo ciidamada loo waxaynay faraha loo qaado shacabka reer Gado iyo mas'uuliyintooda halkan ay joogaan iyaga tagaya ciidan baa lagu muqooniyay ciidan baa lagu burburiyay ciidan baa loogu geystay ma jiro wax shacab reer Gado la yiraahdo oo barnaamijka ku jiray kuwa xamar maanta lagu duqeynaya lagu dhibaataynaya ciidanka lagu sameeyay askartii qaarkood shalay ka hor yimid intii la qaaday iyagoo meydkooda laga soo saaray qashin qubka wa shacab baa wax diiday baa la leeyahay la jiifiyana banaan mooto meesha wataale